oo carruurta ula hayo way yar tahay ma badno hadday jiraan hataa ma badno aabayaasha hataa guryaha joogaan way iska joogaan badanaa hooyooyinka iyaga keligooda dhibka iyo mas-uuliyaddii oo dhan ee dusha ka saaran tahay marka waxaan waxaas u dhahay waxay tahay aad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأولاشين أيان لول أو إذن أصحاب جنال كي كحن صور دواد سيئتين إن شاء الله فيديو غيني هوري أوغا هادليني دادك كهادلو وحيالا أن إيغ إيس أوغيني قوب جوغ إهن أما وحيالا قدران إيغو كدعين أما أريني إكسبيرنس إيس أولهن أي جواب كبحيان إن دمر كان هدان دمر كان هنا أريماس إنت بدن كدعان قبلهن الصوماليات وحان لي ولا لي عن جعل هرت أوغورين مرك أوغوريس وحان لي عن nafteedii naftiina aan ku gubaabina ina ilaahay horta marka hore uu ka baqno talabaadna arrin annaga aan noqoseynin ama se aan goob joog u ahayn ama aan experience aan u lahayn sida maxaa la dhaatan haddii adiga aanan ahayn hooyo maaragtay single mother iyo dhibaatadooda aan ka hadli karin haddii aad tahay hooyo maaragtay wiilkeedii ama gabadheedii wax dhibaato shaydaanka intuu ka duufsaday ama gabadhi suuqa ay gashay ama maaragtay wiilkii laga xiray haddaad ahayn hooyooyinka dhibaatooyinkaas oo kale ay ku dhacaan aadan jawaab siin karin arrimo dhaceen oo kale sida arrin haddeertaan ayaama dhexdaas la wadwaday qof kasta uu youtube-kiisa oga hadlayo kale arrinta Faadumo Buraanbur inta u duceysay oo wanaag oga hadashay maasha Allah waa soo dhaweynayna khayr Allah sii laakiin waxaa jiray dad siyaalo badan oo qalad oga hadlay arrimahaas oo kaleeto dad baa ka hadlaan goobjoog uma aha ma ogo gabadhii maaragtay walaashood ama ehelkii oo kalooska reerka ku ahaa ma ahan arrimahaas oo dhan ay ka hadlaayaan reerkii ay ka jawaab bixinayaan ilmihii sida loo qaataan ka sheekeynayna leeyihiin gabadhan ilmihiisa looga qaata ka hadlayna leeyihiin gabar haddii lala aroos sidii loola aroosay annaga ka hadlaynaa ayadii ninkeeda hadday kala tegeen waxay ku kala tegeena annaga maaragtay ka sheekeynayna lagu leeyahay ninkii gabadha hadday kala tegaan gabadha le ka hadli karto dhibaatadii ama wiilka ka hadli kara ama gabadha ka hadli karto ama familigii markaas reerka dhaleen way ka hadli karaan wiilkii gabadha oo kaleeto laakiin kama hadli karo qof kale oo arrintan aan xoogaa lahayn darisa kama hadli karaan sababtay ninkii naagta markay sheekaysanayaan hataa tusaale hadda idin soo qaato ma aragtay haasaabo ama shukaansi waxaas uu ka dhaxay muddo markay kasoo wareegato kadib ay isguursadaan barashada waxay u bilaabataa markay isguursadaan ee guriga iskugu imaadaan qof walba si uu aaminsan ani taas aaminsana inta ka horeyso ninkaasi adigu si fiican iskuma taqaaniin marka nina waxa laga yaabaa intaas sanad ku dhawaad ama intaas soo biloodba ama sanadba ka badan dadka qaar ay sheekaystaan ay sheekaysanayseen mar alaali marka guriga iskugu timaadeen inuu waji kale iyo baab kale ina hadana isku aragtid ku aqoonin adigana uu waxyaalo badan kugu aqoon uu kugu arko marka see ku ogaan kartaa daris hadaatiin hataa ma ogaan kartid waxa ugu dhow ogaan karo qofkii gabadhaas la dago ama ma aragtay hadaa safar la gasho waxa la qofkaas ama la degmaal ama safar laga mahmaasasa jirto waxa laga yaabaa inaa wax yar hataa ka ogaad si fiican ma ogaan kartid wad isku soo duuduub gabadha iyo wiilkaas haday kala tagaan qisada ku kala tageen wax ka warami karaa ma jirin gabarha ma aragtay wiilkeeda hadii laga xiray hooyo ka jawaabi karta sida loo xiraan jirin kii la dil hooyo ka jawaabi karta sida loo dilaan jirin badanaan wax ka jawaabo ka hadlo ku digdigto ku tiiqtiiqsado waxa waaye hooyooyinka carruurteeda raystaan waata ka soo hadlayay videogeyga hore uga soo hadlay marka wali videoga hore daba socdaa waxaan leeyahay hooyo aan wadankan teenager ku korinin waxa waaye experience wax badan u dhiban waxa waaye teenager ka aad u dhibadan wiil iyo gabarbo xitaa haddii 100% inta diinta barta ciyaal fiican adiga ay ku yihiin still hooyo kasto ilmo teenager haysato tii dhahda aniga waxa waa everything okay yihiin uma maleynaay taas waa runteed ma dhigi karo waxa waa cunug kasta oo teenager gurigu joogo hooyadaas way walwalaysaa sababtay hadduu xitaa shaqo aad of course oo walwalaysaa intuu ka soo hoyanay sababtay amaan ma aha wadankan aan joogno xaafada hal cunug hadduu waxa leey ilmihii dhan safe ma ahan waa walwalaysaa asoo soo gala ama cunug lagu qaldaa xaafad ahaan ama loo ugaarta asoo waxba haleen iska dilaa ama kuwa kaleeto oo shaydaan furaha ka dhumi ay jidka ka qabsanay kaasi duufsadaan adi hooyata waa walwalaysaa le been muku sheegay hadday gabar ee casho ama gabdho baadi u raacdo maanta dhan maxaa qalad ma dhici doono dib ma dhici doono hooyo hadana waa walwaleena maanta dhan waxa laga yaabaa aabayaashu iska qaylo badan yihiin
hooyadii iyadoo bareesharka ilmi yaryaraa guriga culayskiisa saaran yahay haddee rabto waalidiinteedii dadkeeda afrika ku dhibaataysa culayskooda uu saaran yahay aabihii inuu dhinac culays ka saarayo oo gabadh yareed ama wiilka yaraa intuu bax banaanka aaday uu maanta dhan hooyooyin waa ogna ilmehen in dhinacoodna laga maro ma jeclin maanta dhan waxaa laga yaabaa aabihii inay kala qarinayso ilmihii hooyooyinka iyagoo dhibaatooyinkaas ku sugan waxaa laga yaabaa hooyo shalay meedaraad la aroosa 2 sano 3 sano 4 sano 5 sano la qabay inay jawaabo qaldan ay siiso hooyooyinka noocaas oo kaleeta haddii cunugii uu suuqa galoo kale ay dhahaan iyagaa u lahaayeen maalin dhaweed waxaan arkaya oo iguba qasbay inaan videogan ka hadlo gabar aad u yar oo ilmahan dhalnoo kale la mid dabcan waa ilmihii waxaa laga yaabaa qurbahana waxay tiri anoo yar imaado ligu soo koriyey dabcan waa ilmihii iyagoo yaryar wadankan aan keennay oo rafaadka aragtay aan kusoo korinay haddii la rabo waxaa laga yaabaa hooyo single mother soo koris oo kusoo rafaaday ama kuwa la qaba hataa inta ugu badan hooyooyinka ayagaa rafaadka ku jiraan ayagaa silaca ku jiraan ayagaa caruurti haystaan caruurtooda la ordayaan way yar tahay hooyo ma aragtay xaajigeed uu garab taagan yahay oo caruurta ula haayo way yar tahay ma badno hadday jiraan hataa ma badno aabayaasha hataa guryaha joogaan way iska joogaan badanaa hooyooyinka iyaga keligooda dhibka iyo mas-uuliyaddii oo dhan ee dusha ka saaran tahay marka waxaas u dhahay waxay tahay aad iyo aad ii dhibtay waa ilmi yaryara annaga aan soo korin haddaan hooyooyinahay ilmi yaryara ee annaga aan shalay reerkoodii dhisnay baa waxay isku dayaan markay 2 iyo 3 dhaleen inay annagina canaantaan inay annagana dhahaan hooyooyin qaldanaatiin inay annagina dhahaan hooyooyinka aroosiya xafladay tahay ilmahooda warka ma hayaan inay annaga dib noogu soo celiyaan jawaab qaldan sababtay tahay cunugba may ku korin wadankan haddaaba teen ager wadankan aan ku korinin sheeka waa kuu dhiman tahay ma fahamti hadduu xitaa ilaahay ku badbaadiyo still dhibaato badanaa taalo sheeko waa kuu dhiman tahay walwal iyo murug iyo hooyada hataa ilmeheeda ilaahay uu u badbaadiyay allah noo wada badbaadiyey still waa walwal iyo murug way ku jirta hooyaan ku jirin malahan hooyo kasto agekeeda age ka horeeyay noqotay se u walwalaysay se u fakaraysay aabayaasha iyagana kaalintooda ay ka gaabinayaan oo wixii oo dhan gabadha iyada ee dusha ka saaran waxaa arkaysaa aabayaal badan oo ilmihoodii aan warka haynin gurigooda markay joogaan waxay ku leeyihiin maxaa la dhaatan ilmahooda waqti ma la qaadanayaan ilmahooda ma aragtay ma danaynayaan maxaa la banaankii ku ordayaan banaankii usoo cararayaan banaankii nafis kasoo doonayaan ciyaalkii kasoo cararayaan hooyooyinka waxaas oo dhan iyaga keligood haayaan marka waxay iga tahay hooyada cunugeeda la dilay uma jawaabi kartid hooyada cunugeeda ka xiran uma jawaabi kartid hooyada gabar ama wiil suuq intuu ka galay iyadaba walwalsan uma baahno jawaab qaldan in la siiyo midday u baahan tahay waxay tahay walaasha u duceey haddaa ii imaatid cunugeyga iga wareersan yahay aniga ii duceey midaan ka hara waxay tahay inaa ii duceysid inaa qalbiga ii qaboojisid inaa ii nasteexaysid inaa naxariis kaa dareemo hooyo kasta qofka ay naxariista ka dareemayso qof kuu rab ha ahaado hooyadeed ha ahaato aabeed ha ahaato gabadha dariskeeda ha ahaato shiikh wadaado cid imaanaya hadduu rab ahaado wuxuu rab ha ahaado adig hooyo walba qofka ay naxariis iyo ka dareemayso ma aragtay kalgaceel sirteeda u sheegane waxaa meeshii ay naftaada inay naxariiska dareemaysa ogtahay mar walba talaa u doonane ma aragtay markii stress kugu furayn waa aade laakiin hooyo kasta waxay gabadha kale oo walaasheed aan isku caawin laanahay oo tusbax afka laga jaro oo sas isku raaca u noqonay oo isku daba qaban laanahay oo caruurtii ma aragtay ay nooga wada fakadeen waxaa waaye annaga hooyooyinku dhibaatada naga taagantahay waa waxay maanta ilmihii annaga shalay aan korinay ay jawaab qaldan noo siinayaan sababta ay tahay waxay tahay annaga hooyooyinka aniga waxaa laga yaabaa inaan ahay habar sheedaamad gabar kale oo walaal oo miskiin oo naxariis badan oo waxaa laga yaabaa gabadhaas walaasheena dhib hadduu ku dhacay dhibkii haddii ay u sheegato caawin lahayd laakiin saddexdii kale ani anka ka waa sheedaamiinan waxaan leenahay ayada aroos taagan ayada saana iyada isla wareegtay iyada ciyaala suuqada ninkeeda xooga tagay qabta ninkeeda 99 in ay leena korka ka saarina marka lambar 1 waxa ogaatiin hooyada Soomaaliyeed inay tahay hooyo mar walba haday xunta haday fiican tahay la jecel gabadheedii wiilkeed inay lambar 1 diinta ka ahaadaan waxbarashada inay lambar 1 ka ahaadaan ilmaheeda inay ilmo geesiyaal noqdaan hero inay wada noqdaan inay wax wada bartaan nafteeda u horeysa wax walba xoolo waxay hayso dhan ay dul dhigaysaa tuurarka inta isla taagan dugsiyada quraanka la wada gabdhihi la wada taagan yihiin iskuuladii kula wada kala hayaan intaas waxay soo dhagdhageenaa meesha cunugooda waxbarashada ma artay kuma aaminaan jaamacad cunuga haduu aaday haduu iskuulka aaday intaas waa la garab taagan waxbarasho kaleeto oo kor socod ay lacagtooda ku bixinayaan
waxaa ma nastaan habeenkii ma seexdaan waxaa laga yaabaa saaka kabtay gashteen caawa markay intii yar 9 ay sariiraha intii yar ay kala gelgeliyeen intii waaweyneeda laga yaabaa caawa intay soo hoynayeen oo dhan inay u taagnaato waaga markuu bariyeen inay kabti meesha ka sii gashato hooyadaas ficeedayba ka hartaa ma fahmi haddii aroos aadaan gabdhaha way wareereen wax beela u socdaan iyo meel kale qaarkood ma kala garanayaan laakiin hooyo rabto ku bishaarayso gabadha Soomaaliyeed ee labadii saddexda carruur haysato amaba kuwa waxaa jira iyo laftigood carruurtiin ee jar haysto oo hadallada ma aragti dadka ku dacdacsadaan oo war iska haynin oo aaminsan idinka seefa ku jirtiin dadkaana wax dhibaato ku sugan dadkaana ilmooda ka halaameen marka waxyaalo ay ka hadli ayna ogeen waxay yihiin ay jawaab ka bixinayaan marka gabadha walaasha hadduu dhib ku dhacday gabadheeda ka halowday iyo hadduu wiilkeeda uu halaabay iyo hadduu cunugeeda ka dhintaba waran ay lagu dhuftay adigana ha kusii gilgilin waxay kaaga baahanta waa naxariis waxay kaaga baahanta waa duco waxay kaaga baahanta waxaa la garab iyo support inaad siiso ma kaaga baahno hadallada maarad ku digdigashada inaad kula hadashid marka waxaan leeyahay video waa ku dheeraado waa walaashin ayaan luul oo idin leh asxaab channelka ku xiran dhamaanteen aan isku soo wada duceeyno ilmaheena inta xabsiyadu ku jirto ilaahu ku soo hidaaye ka soo helo oo iyagoo hadaysan oo hanuunsan nooga soo baxo ilaah nooga dhigo inta banaanka joogtana sharti iyo shaydaanka Allah nooga qabto kuwa shaydaanka ula tagan Allah nooga soo wada celiyo inta dhimatay Allah u naxariisto gabdhaha carruurta ay ka dhinteen walaalkay oo wiilkii dara Toronto wiilka uga dhinta ugu dambeeyay yow baby waxaan leeyahay qalbiga Allah idin qawajiyo adiga gabadha walaashay ebo ilaahay sabri iimaha naga wada si naga wada baxay wiilka kulligeen hooyooyinka Soomaalida dhan hadaan hayna qalbiga Allah noo wada qawajiyo carruurta naga wada baxeen sabri iimaha Allah naga si inta aan haysanana walaalayaal oo please xaasidnimada iska deeno gabar kasta oo walaasheen oo dhiban dhibkeeda ma sheegan karto sida runtii anigayga idin la hadlaayo baan idin sheegi kar dhib hadduu igu dhaco waxaan isku dayay dhibkiina isku qariyo dhibaatooyinka aan qarsanayna waxay noo keeneen dhibaatooyin badan inay nala soo darsaan xanuunaha gabdhaha badanaa ku dhaco stroke ku dhaco gabdhaha qaar haritaga ku dhaco gabdhaha se u joogaan qaarkood maarta maskaxdooda isku wada dhaxyaacday waxa waa dhibaatooyinka ay qarsanayaan nooca dadka isku wada maskax ma oo dadka isku wada mid ma waa dhibaatooyinka aan wada qarsanayn aan isku wada celinayno gabdhaha depression ku wada dhacay marka malahan meel loo cararayo malaha meel ay gabdhaha u cararaan annaga haddii dhaxdeena isku soo carar leen hooyooyinana ay iswaanineen wax isku sheegi leen annaga sida runta xaasid isku ah annaga isku daba dhagan marka waxaan leeyahay asxaab channelka ayaan luul ku xiran isku soo duceeyno insha Allah waa walaashin ayaan luul oo idin le mar labaad iyo mar saddexaad ba soo dhawaada asxaab channelka ku xiran waa idin soo dhaweynaa dadka cusub aad iyo aad idin soo dhaweynaa kuwa idin sii joogana sidoo kaleeto waxaan idin leeyahay ii sii jooga commentidiina quruxda badan waa idinkaga mahad celinaya insha Allah dadka iyagana ajnabiga waxaan leeyahay thank you so much soo dhawaada idin leeyahay channelka waa channelka walaashin wiil iyo gabar waa soo dhaweynaya dhalinyarada aad u yar oon habarirtii eedadu u ahay ani kulli ayaan lul hadaa ahay oo dhalinyarada Soomaaliyeed kulli waalida u ahay walaalo gabdho walaalahay dhib la'aan iyo wada dhalay wiil iyo gabar waa idin soo wada dhaweynaya insha Allah waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh